waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer gobolka Banaadir waxaan ku hadlayaa magaca xisbiga horumar iyo midnimo qaran Soomaaliya oo loo soo gaabiyo MBU marka sidaa darteed waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ogaadaan habraaca doorashada inayna la fahmaan habraaca doorashadeena wuxuu u sameeysan yahay waraaqda liiska 53 aan kaga jirnaa oo maxay ahayd xisbiyada magaceena waa horumar iyo midnimo qaran oo loo soo gaabiyay MBU kadibna horteeda MBU-du waxaa ku qoran number 7 oo waadax ah oo weyn oo uu ku wareegsan yahay wareeg dahabi ah waxaana ka horeeyo box afar gees ah oo la rabo in ama tick aad saarto ama x aad saarto ama jiitin toosan aad saarto ama dhibic aad saarto mudane muwaadin codkaaga ugu hiili ama ku go'aami mustaqbalka caruurtaada kaaga iyo kan ummadda Soomaaliyeedba waxaan sir naxariis leh kaaga codsanayaa codka adaa iska leh inaad kaarka soo qaadato wax macna ma sameynaayo inaad lafta soo qaadatona wax macna ma sameynaayo waxa macna sameynaya waxa waaye codkaaga inaad go'aankiisa aad lahaato adiga aad codayso sideed u codaynaysaa xisbiyo badan ayaa jira calaamadaha xisbigeena calaamada gaarka ee loogu codaynayo waa number 7 waxaa laga yaabaa qaarkood inay maroodi leeyihiin qaarkood inay faras leeyihiin qaarkood inay dhiil leeyihiin qaarkood inay calaamad kala gooni ay leeyihiin annaga xisbigeena waa horumar iyo midnimo qaran calaamada loogu codeynayo waa number 7 oo waadax ah muuqata oo wareeg dahabi ah ku wareegsan yahay kadibna horteeda waxaa ku qoran box afar gees ah oo aad ku qori karto calaamada tigta oo saxda ah x oo istilaab ah jiitin dheer ama dot calaamad dhibic kaliya oo qalinka aad ku sameyn karto muwaadin waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa si aan ugu tallaabno ama ugu baxno ama aan u gooyno xirigii ama dabarkii Soomaali ku wareegsanaa burburkii 32 jirsaday marka laga soo tago oo macnaheedu oo ahaa qofka ku xukumaaya ama ku maamulaya ama ku masalaya malaaqa soo doortay malaaqay isxigaan malaaqa awlaalu siiyay dibadoo ka yimid dhulow soo gatay hantiyow leeyahay asagaa kursiga gatay intaas oo dhan inaan ka gudubno sida oo madaxweynaha qaranka uu asteeyay 25 oo khamiista ku aadan waxaa la aadi doonaa doorasho qof iyo coda ayaa loo dareeri doonaa sidaa darteed waxaa si raxmad naxariis iyo xushmad iyo sharaf ku dheexan tahay idin kaga codsanaynaa dadka ku nool gobolka Banaadir in aad codkiina nasiisaan noogu hiilisaan ونو عديسان حسب horumar iyo midnimo qaran aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh